muddada labada sano ee xilka haya Cabdiraxmaan Axmed Cali Tuur ayaa mucaaradad xoogan uu kala kulmay siyaasiyiin ay ku soo wada jireen SNM waxaana kamid ahaa madaxweynaha haatan talada dalka haya Muuse Bixi Cabdi isagoo waqtigaasi dalbanayay in la isugu yimaado shirbeele si looga tashado ayaha dalka isagoo waqtigaasi aaminsan in xukuumaddaasi Tuur ay ku fashilantay hawlihii shacabka Soomaaliland ay ka sugayeen waxaana sidaas madaxweyne Bixi waqtigaasi uu ku sheegay wareysi lala yeeshay 1993 waqtigaas oo la qabanayay shirkii Boorama waxaana wareysigaasi uu ku xusay in shirbeelaadkaasi uu ahaa kii ay dalbanayeen isagii kooxdii kale la socotay wuxuu ka hadli doonaa shirku nabadeynta beelaha ayaa ay ka talinta Soomaaliland sidee magaciisa ku baxay ee sheekh lagu soo sheegay ay ka talintaasi marka maxaad ula jeedaa ay ka talintu waxa weeye in lagu soo dhiso dawlad sal ballaaran maadaama muddadii SNM xukunka ay haysay uu dhamaaday Muuse waxa jirtay intii ka horeysay ama aan idhaahdaba sanadkii u dambeeyay in kooxdiina mucaaradka ahayd ay codsan jirteen shir ay ka talineed shir beeleed shir qaran shirkan shirarka ma kamid yahay oo kii aan codsanay in Soomaaliland si toado ay meel wax dhigato wax dhisato marka aan u baaqin xubno guurta kamid ah wada wadina ma aragtidu ma soo timid waxa jirta fikrad oranaysa Muuse maadaama kalfadhigii labaad ee golaha dhexe sanamtu burco uu ku go'aamiyay in muddo 2 sanadood ay dawladdan ay xukunka gacanta ku hayso dawladdanna tahay tii SNM dabadeedna ay diyaariso si dastuurkeeduna uu sheegayay nidaamka xisaabta badan leh labadii midna lama diyaar hal faafiin baa in lagu soo socdo in SNM muddada loo kordhiyo ma qabtaado haday umadu garato umada isu timid waxay garato ma ka soconaa marka umada isu imanaysa odayaashunba dadweynaha matalaya dadka ku nool Soomaaliland shirkaasi Boorama ka dhacay 1993 ayaa lagu doortay Rabbi Naxariisi Jannaha ka waraabiye Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal halka ku xigeenna loo doortay Cabdiraxmaan Cali Faarax kuwaas oo noqonaya madaxweynihii koowaad iyo ku xigeenkii labaad waxaana xukuumaddaasi madaxweynaha talada dalka haya uu ka noqday wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha waqtigaasi wasiirka arrimaha gudaha waxa dalka ka dhacay dagaalkii sokeeye ee dhacay horaantii 1994 madaxweynaha talada dalka haya ee Muuse Bixi Cabdi waxa uu ka tagay xilkii wasaaradda arrimaha gudaha kadib markii xilka qaadis uu ku sameeyay madaxweyne Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal waxaana waqtigaasi uu ku biiray siyaasiyiin mucaarad ahayd oo ka soo horjeeday xukunkii marxuum Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal waxaana madaxweyne Bixi oo waqtigaasi warbaahinta la hadlay uu ku eedeynaya madaxweyne Cigaal inuu taladii dalka ku ururiyay siyaasiyiin ka soo jeeda beeshiisa waxaana eedeynta uu maalintaas u jeediyay kamid ahaa suldaanka xilaya oo siyaasiga xilaya oo ninka ilaahna taagi baan ku dalbanaya oo distoor baan ku dhaqmaya oo talada wadaagayna Soomaaliland ka fashiliso ina been sushi maxamed xaajiran cigaal cid isku haleynay ma garanayo Soomaaliland ku dhismi mayso maxamed xaajiran cigaal oo yiraahdo gar iyo gardaran ku soo baxaya maanta madaxweyne cigaal hal baan leh maxamed xaajiran cigaal madaxweyne masjid tajriba baa tahay ma 40 sano ay Soomaaliland tala ku muuday ma 9 sano ayaa Soomaaliland hor fadhiyay ma maanta dhufay isku raay ka qoftay ma maanta taang iyo teknika u dalbatay salaadiintii adiga ku calaamad saartay ma maanta ayaad awoodii ku soo ururisay in aad ku sugnaantiin daakhiliga xaakimkii sare xeer ilaalintii taliye ciidan ma maanta awoodii ku soo ururisay in suldaanada wax ku maanta 8 sano siyaasadda hadda halka ku soo ururtay waxaan kugu talinayaa wixii hore lagu yiri anoo ogeyn hada aqbalay maanta waxay danta Soomaaliland ku jirtaa oo aad Soomaaliland wax ugu taraysa adiga oo ka baxata tartanka siyaasadda waxaad wax ugu taraysa adiga halka fariista maanta waxa qura kula gudbay waxa weeye adoo salaadiinta xilna sii daaya kuwa kalena wada hadal laga aan shuruud lahayn dawladda hadii markaas ay barbarino xukuumadda uu maanta hogaaminayay madaxweyne Muuse Bixi Cabdi ee waqtigaasi eedeymaha u jeedinay Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal oo ahayd in shakhsiyaad ka soo jeeda beeshiisa ama siyaasiyiin oo xilalkii ugu miisaanka cuslaa qaranka uu ku hareeriyay isla markaasina uu dhiibay haddaba maanta madaxweyne Bixi oo isagu talada dalka haya maxay bulshadu iska barbardhigi kartaa eedeyntaasi uu maalintaasi madaxweyne Bixi u jeedinayay Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal iyo maanta xukuumadda madaxweyne Bixi sida ay u dhisan tahay waxaana jira saluug badan oo ay bulshada Soomaaliland ka qabto iyadoo inta badan madaxweynaha lagu eedeynayo inuu talada dalka markasta u badinayo reerkiisa waxaana waqtigaasi madaxweyne Bixi isagu Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal uu ku eedeynayay inuu talada dalka ku badiyay beesha uu ka soo jeedo
isagoo waqtigaasi farta ku fiiqay xilal ay kamid yihiin maxkamadda sare iyo taliyaha ciidanka qaranka waxaana maanta ay bulshadu ka dharagsan tahay cidda xilalkaasi kala duwan haysa madaxweynaha haatan waxa kale oo mucaaradad xoogan uu ku hayay madaxweynihii saddexaad ee Soomaaliland mudane Daahir Riyaale Kaahin waqtigaas oo ahaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye madaxweyne Biixi Siilaanyaba waxa ay eedeymo xoogan u jeedin jireen madaxweyne Daahir Riyaale Kaahin isagoo eedeymihii uga adkaa kala kulmay hogaanka kulmiye ee waqtigaas oo ay kamid ahaayeen Siilaanyo iyo waliba Muuse Biixi Cabdi bal waxaynu markan daawanaynaa eedeymo nooceeya ayuu madaxweyne Biixi u jeedin jiray madaxweyne Daahir Riyaale Kaahin haddii xafladii dawladdu qaban weydo waxay doontaa ku sheegteen xaq waxaan u leedahay inaan bulshada ku cilcilan doonayso haddaad dhalinaysa cidda qaban weydo maanta doorashada haddaad cid dhalinaysa warqaadaada sa bedelaysa ma aha buuq ma aha soo horaya ma aha buuq xalay toole waxaa hadday madaxweyne Daahir Riyaale Kaahin sideedii sano madaxweynaha anigu sidaan u qiimeeyey khudbadu wanaagsan u akhriyay waxyaalo badan baa ku raacsan wixii uu akhriyay wuxuu akhriyay ku raacsanahay Soomaaliland nabadgelyada ha ilaashato oo maanta doorashada caad waa inaga hayn baa soo dhexgali karaan wada feejignaado oo aan nabadgelyada aad iyo aad xajino booliska kaashiro waa ku raacsanahay haddii ay la noqoto korbanka talada ay waxay noqotay in lagu caawiyo iyo in lagu mudaharado iyo lagu dhacay ma soo baahan waa la noqotay isaga hogaanka isaga xaaqo wuxuu yiri waxaan doonbay in doorashadu loo socoto muddo loo socoto markaas aasaan u dhowray inaan u qaban haday saa u muuqatay teela xib uu lagu jaro ma taasaan loo yeelay waxa la yahay dadka u qaybsan la yiraahdo civil servant sharcigeena iyo kaadu ku xuquuqaya qof rayado warba hadii uu doonayo inuu siyaasadda ka qayb galo waa inuu soo baxo sharciga dawladnimadu lagu kala qeexaya qofku laba chance ma wadayn karo anigu oo siyaasi oo kulmiya haddana ma noqon kara taliyaha booliska ma noqon kara madaxa bank ma noqon kara barasa ma noqon kara shaqaale aragta waa xaalani civil servants waa karaad waa laga daba tagi doonaa waxay ka wadahay waa musuq ugu weyn nin civil servant oo xisbiga u adeegaya oo murashaxga u adeegaya oo xafiiskii lagu aaminay oo isticmaalaya xisbiga oo xaaran waxa la iskaga harayna maaha waana la iska daba tagi doonaa dawladda dabeemanaya maxkamadda soo saaraya xalay dadka ka hadlayay TV-ga qaar إلى الرياضة ومفروض ولا وناشرنا شغاليه ساعة حبوا هاي ساعة لكذا برصاب ماريا تريا إذا بقايا وكل هذا يكون